وعلى أصحابه أجمعين. ما أنت الشركة يجين شرايط هذا هاي مدح رقمات كهالكن السوقي ميدو حدارني هاي باقة يفرين كوج هنا نودرنا مدحوينها قرنك مدحوينها قرنك فرين تانو هالكن وقدرنا يباقة أنا ما أنت ودرنا وحوي وحكوسها بسنة عارين تقولها الديجان قول الديجان نضر دمان تود مركل يسقط الضرو. قولها الديجانكو ما نديت بولها مدة شرعيات بولها ما نديت كيسي مدة دي سي شرعيات وين دماتي. قولها أنا ما دام وما نديت كيسي مدة دي سي شرعيات دماتو معنا ووسي شوقا ما تحله مدحوينها بلنقات كيسي هروحها برق الدور الشدة قلي إنه الشرع قصرين دونه ما أنت إنه ضلكوا شرعي الآن كل شقيو قوليال بلا شرعي وطنك عشور كقاعدان waxaanu aqbali karaynay waxaanu dhageysan karaynaa midna maaha fariintaan markaa halkan kaaga soo gudbinaynaa mudane madaxweyne waxa weeyaan sharciga sareynayadii waxay noqotay sharci la'aan ba cashuur dadka laga qaadayaa shicibka arintaasi waa arin aan la aqbali karin oo qalad wadanka bariyahanba ku ahayd in cashuur qaadaana waa xaraan laan maadaama aanay lahayn ba awood sharciyadeed oo authority legal ba lahayn in cashuur umada ka qaadaan waxay noqonaysaa shay xaraana marka mudane madaxweyne fariintaan halkan kaaga soo dirayna waxa weeye in dhammaan golayaasha deegaanka aad kala dirto awood sharcina waad u leedahay golo bilaa sharci in wadanka ka shaqeeyana wixii aynu sheeganaynay iyo dimuqraadiyaddii aynu sheeganaynay iyo dalnimadii aynu sheeganaynay bay cambaar ku tahay dhaawac ku tahay waxay noqdeen sharci la'aanta waxay kaga daran yihiin waa dhiig miirato ummadda ku dul nool waddo la samaynayaa ma jirto cashuur inta la qaado dadka wax loogu qabanayaa ma jirto mid waliba isaga ayaa kownkiisa iyo xaasaskiisa iyo caruurihiisa ka biishanaya madaxweynuhu nimankaas hadday lacag sharci darraa inay qaataan uu ogol yahay dee guryahooda ha ku siiyo ummadda ha ka hor dhaqaajiya nimanka markay saa tahay xisbiyada muncaaridkaana waxaan leeyahay arrintani arrin la xamili karaya maaha warqadaha qortaan iyo kala dirana lagu kala diri waaye xisbiyada muncaaridkana waa inay arrintaa mudaharaad ka sameeyaan oo lagu taageero xisbiyada muncaaridka arrinta in la kala diro golayaasha deegaanka arrintaasi waa laga dhagaadeegay madaxweynuhu oogay inay bilaa sharci yihiin ummadoo dhamina way ogtahay sabab ay cashuur inooga qaadaana lama garanayo xisbiyada muncaaridka waxaan u soo sheedinaynaa hadday xukuumaddii ogolaatay inay golo bilaa sharci wadanka cashuur ka qaado hadday iyaguna ku daawadaan waxay noqonaysaa inay iyaguna awoodii muncaaridnimo iyo dimuqraadiyadda lagu tumanaya aanay iyaguna ka shaqaynahayn marka xisbiyada muncaaridkaana fariintaanu halkan uga diraynaa waxa weeye arrintaa inay ka mudaharaadaan oo mudaharaadyo qabanqaabiyaan oo ilaa iyo golayaasha deegaanka ummadda laga hor dhaqaajinayo aan mudaharaadadaa la kala jarin annaguna haddaanu madax dhaqameedka reer somalilan nahay dhammaan arrintaa xisbiyada muncaaridka waanu ku taageeraynaa si 100% waanu kala shaqaynaynaa fariintaan mar labaad madaxweynaha qaranka ugu celinayna waxa weeye madaxweyne waxa ceeb kugu ah in golo bilaa sharci wadanka ka shaqeeyo oo burca ka shaqeeyo berbere ka shaqeeyo boorama ka shaqeeyo cerigaaba ka shaqeeyo laascaanood ka shaqeeyo 6 gobol ee waaweynba golayaal bilaa sharci ay ka shaqeeyaan iyo 23 degmo doorashada Soomaaliland ka jirta saan jecelahay 23 golo oo bilaa sharci baa ka jiro dadkii cashuur ka qaadaya arrintii loo doortay maaha xukuumaduna kalsoonidii loo qabay baa ku lumaysa muxaafidnimadii loo hayay baa ku lumaysa dhammaan shacabka waxaan u sheegaynaa arrinta xisbiyada muncaaridka ka gilgilanaya in lagu taageero oo lagu soo dhaweeyo arrinta anaguna saasaan uga soo horjeednaa madaxweynaha waan ku celcelinaynaa haddii la kala diri waayana bulshada waxaan u sheegaynaa golayaasha deegaanka inaanay wax cashuuro siinin saasaan u sheegaynaa maadaama aanay sharciba lahayn dee cashuur bilaa sharciya inaynu bixinaa sharci dhigayaa ma jirto bulshada waxaan u sheegaynaa golayaasha deegaanka ilaa inta madaxweynuhu waa inuu cid gaara u igmado oo ku meel gaara inta muddo doorasho loo qabanayo wadanka cid doorasho gaarsiisa oo ama maayaraa ama dee gudoomiyaha inuu u magacaabo ayaa loo baahan yahay markaasunbuu shicibku cashuur bixin karaa inta golayaasha bilaa sharcigii joogo shicibkana waxaan u sheegaynaa inaanay cashuurtaa bilaa sharcigaa bixin asalaamu alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam maanta shirkan jaraa'id ee cuqaashu iskugu timi waxaanu baaq ugu diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan baaqaas oo ah golayaasha deegaanka ee ay muddadoodii dhammaatay ee wakhtigii ay mandaydka u haysteen uu gabagaboobay muddo dheeraadana sii joogay sidii loo kala diri lahaa madaxweyne
maanta golayaasha deegaanka waynu wada ognahay wakhtigoodii goortuu dhammaaday waxqabad wixii ay ummaddan u qabteen wakhtigii golayaashan deegaanka ay xilkan hayeenna waynu ognahay waxyaabaha ay soo kordhiyeen tayadoodu intay leegta waynu ka warhaynaa maanta waxa ay shacbiga jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan caasimaddu halis ugu jiraan diyaaraddii uu cawl cilmi cabdalle saaray khayryada dayactirlaan inay ugu soo dhacdo 2 golo deegaano way soo mareenoo min 5 sanno ahi sidaa daraaddeed madaxweyne waxaanu baaqayaganu yahay kol haddii wakhtigii golaha deegaanka ay sharciga u haysteen uu dhammaaday kol haddii muddo dhaaf ay ku jiraan kol haddii shacbiweynaha reer somalilan uu isku wada raacsan yahay in intaad maayir soo magacowdo muddada golo deegaankala la qabanayo kuna qanacsan yihiin madaxweyne wuxuu yahay baaqayagu inaanad nimankaa waxba sii eegan inuu sharcigu sarreeyo in ololahaagii bay ku jirtay ee aad ka run sheegto oo aad qodobkaa ku tallaabsato kolley way fududahay sida hadal loo yidhaahaa laakiin ficilka fulintiisa ayaa ka wanaagsan waxaanu maanta markaa annagu cuqaal ahaan baaqayagan uu yahay nimankaa wakhtigoodii dhammaaday inaad kala dirto isla markaana aad inta golo deegaan dambe la samaynayo soo magacowdo xubnihii caasimadda iyo degmooyinka kale ee dalkaba matali lahaa intaasuu baaqayagu ku urursan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا الكبدن ما يو عقاشي جوهر السبا هذا الكلام استفتي شركة جرائدنا وحو كسب سنة هاي إن المدحوين الجمهورية السومالية لأن ما أنت هلكن باقو قدرنا باقا ندر إنه حويان أنه كنت هاجر إن باقي وصوص على حسبه وعد شلي in dadku golaha deegaanka in laga hadlo uu uga hadlayo xisbigaasi waanu ku taageersanahay waxaanu ku taageersanahay xisbiga u cileeraa ee ka gilgilanaya dhibaatada dadka lagu hayo nimankan shicibka imaka ah ee xasaanadoodii waqtigooda dhamaaday ay dadka cashuurta kaga qaadayaan waliba hatidaada iyo anjabaada ugu darayaan agoomaha kala baxayaan albaabada haday cashuurta ka waayaan waxaa jirta mudane madaxweyne 5 sannadood ee golaha deegaanka uu jiray wadooyin aan hal god la buuxin ayaa jamhuuriyadda Soomaaliland ka jira intaana cashuurta laga qaato indhahagaad ku aragtaan manay wad martay dalka markaad ka baxayso mudane madaxweyne ku dhacaagii aad golaha deegaanka iyo ololahaagii ku waday inaad ka joojiso maaha waa inuu go'aankaaga fulaa waana sharci wax xadgudba maaha wuu ka dhammaaday wakhtigii waa shicibkay la sameeyeen dadka shicibkaa shaadh aanay lahayn bay u huwan yihiin saacaddan imaka la joogo waxaanu shicibka leenahay golaha deegaanku shaqada way ka dhammaatay waa shicib maaha xasaanad ma leh sharcigii dalka u yaallay way ku tumanayaan madaxweynuhuna inuu sharci darrada eegto maaha mudane madaxweyne waxaanu kugu taageersanayn oo aanu kugu ololaynay oo aanu kugu isku garab taagnay waxay ahayd sharcigaa sarreynaya maantana sharcigii baa hooseeya sababtoo ah sharcigii nin aan dee wixii aynu dhigannay iyo sharciyadii dalka aan waxaan xusayn baa ku shaqaynaya nimaan lahaynba sharciba ayaa ku shaqaynaya oo waqtigiiba ka dhammaaday waxaanu leenahay dadka shicibkaana waxaanu ugu baaqanayo xisbiyada mucaaradkaana arrintaa in mudaharaad laga dhigo golaha deegaanka waa in laga mudaharaadaa waa in la diidaa mudaharaad salmiya oo aan dhibaato ku dhicin waa in la sameeyaa saxaafadda aad baan u salaamaya mudane madaxweyne saxaafaddana waa inaad ilaalisaa saxaafaddu dadkay u dhaxaysaa waxay gudbisaa qofka dhibaataysan wixiisa waxay sheegtaa dalka horumarkiisa aadna waan ku salaamay mudane madaxweyne
wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu